بوغشada America aan ku yimid waxaan imid magaalada Washington si aan uga qayb galo shir looga wada hadlayo mustaqbalka Soomaaliya wixii ka dambeeyo isbedelka bisha August wixii ka dambeeyo dhinaca culayska la saaray wuxuu ahaa dhinaca horumarinta iyo mashaariicda loo baahan yahay in wax looga qabto markii August la gaaro waxa ka soo qayb galay dawlado badan waxa martigeliyay dawladda Mareykanka iyo jaamacadda George Washington road mapka runtii wax badan la qabtay intiisa badan uu soo gabagaboobay hadda waxaan ku jirnaa dabayaaqadii shaqooyinkii la ilaamiyay horaadkii markii road mapka uu bilaabanayay waxa hadda haray oo runtii in la gabagabeeyo u baahan waxa weeye ansixinta dastuurka iyo xulitaankii dadkii ansixi lahaa iyo xubnihii baarlamaanka soo socdo sidii loo soo dooran lahaa iyo muxuu ahaa shaqooyinka la xiriira arrimahaas labadaas shaqo ayaa runtii yani baarlamaankii iyo dastuurkii labadaas shaqo ayaa runtii ugu weyn waxa haray waxa kaloo iyadana mataqaanaa hadda aad u socdo waxqabadkii gobolada gacanta xukuumadda ku soo noqonay iyo wixii laga qaban lahaa marka saddexdaas arrin ayaa inta badan hadda gabagabadii muxuu ahaa road map aad loogu howlay arrintaas way jirtaa laakiin daahid weyn ma aha waxa laga hadlayo waa laba sitimaan iyo wax noocaas iyadana laftirkeeda maadaama barnaamijka sidii loogu talagalay waqtiyada dambe oo waqti fiican jiro meeshaas ayaan mataqaanaa ka maalma ka faa'iideysan doonaa marka guud ahaan markaa fiirisid waqtigii loogu talagalay bisha August uu soo gabagaboobay inta badan daahidda waxaa keenay muxuu ahaa waxyaalo iska logistics كل دول اسكجر كراسان قياسا لكن أنا نجح حكومة هان حنقول عن إنه دمادو وقت يصير كل دمادو ضدنا واسكجران صومالي كلية ما حتى محوها دولة ضدنا يجروا حن وقت القدرة وحجر ضد محوها وشقيه هذا عالمي ولا غيابه إن يجون الدمعسيين إن يجعلين إن وقت يصير ديراد لكن الحكومة هان يباش عالم قينت هذا بدن وينهو قانتها إنه تمام isbedel weyn dhacay runtii hadda magaalada Muqdisho waxa arkaysaa in dhismooyin badan socdo oo runtii shaqo abuuray dhalinyarada shaqo u abuuray waxa arkaysaa in dadka dhaqankooda sidii u dhaqmaan waqtiyada maqaayadaha la aado waqtiyada muxuu ahaa habeenkii la fiidsado isbedel weyn inuu ka dhacay waxa arkaysaa xeebihii Muqdisho aad loo isticmaalayo oo mataqaanaa dadkii maalinta jimcaha intee baxaan stresskii waqtiyada shaqada ay iska soo baabi'inaya runtii isbedel weyn jiro waxa arkaysaa ganacsi badan oo socdo waxa arkaysaa dad badan oo wadanka ku soo noqonayo oo yani ama dadkii qaraabadii soo ziyaaranaya ama business-yada la soo noqonayo runtii isbedel weyn oo xawli weyn ku socda ayaa socda magaalada Xamar iyo gobolada intooda kala weyn waqtigii road mapka la sameeyay waxaa laga dhinac sameeyay sidii loo difaaci lahaa sababta looga dhinac sameeyay sidii loo difaaci lahaayna waxay ahayd in markaa la xaqiiqsanaa inay jiri karaan dad hor istaagayo in wadanku uu road mapkaas laga fuliyo si looga baxo muxuu ahaa ku meel gaarnimada marka berigaas waxaa la sameeyay dad monitor gareeyo oo yani u kuur galo dadkaas waxay noqon lahaayeen adduunyada caalamkuna wuxuu ku heshiiyay in la difaaco oo xukuumadda lala difaaco
hirgelinta mashruucan roadmap marka spoilerku waa qofka ku sifooba inuu sameeyo yani ficilo dhalin kara inuu roadmapku uu hirgelin يعني قفك يعني كسو هرجست رود مابك يعني فكرين وكسو هرجست معارضة معها إنه الوصفة قف هوها قفك معارض كان معها معني يزينو سبويلري لكن قفك فعل انت سمعي مثلا قرية قاطو فوضى سمعي دقالم فعل كيساس مركا يسورة جلسو إنه رود مابك وداوع ما موشقين واي dadka noocaas ayaa ku sifoobayo dadka yani fikrad siyaasiya sameeyo oo fikradahooda siyaasiga ay keento inay joojiso roadmapka laga yaabaa inay ku sifoobaan dadka ganacsatada ee mataqaanaa runtii maalgeliya in yani fitna dhacdo waa laga yaabaa inay soo galaan kulley dada xeeldeerayaalaha waxaas ku howlan waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa hadda waqtiga xaadirka dad laga yaabo magacyadooda in banaanka la keeno ma u malaynayo ra-iisul wasaarihii hore wuxuu ahaa nin runtii dhalinyara oo wadaniya oo shaqo miirana oo shaqadiisu aada u wanaagsanayd oo dadaalay anuma dhagaysan mahiiga commentigiisa laakiin hadduu saa u hadlay waxay la tahay inaysan wax sax ahayn muxuu ahaa farmaajo runtii waqtigiisii gaabnaa wax badan ayuu qabtay haddii uu mucaarado fikradaha iyo barnaamijyada dawladdu wado mana u malaynaa xitaa inuu mucaaraday because waa ogaan lahayn hadduu mucaarado macnaheedu ma aha inuu spoiler yahay aad ay uga fog tahay runtii in spoiler lagu tilmaamo fikradihiisa iyo mataqaanaa runtii aad aan u danaynayna xukuumad ahaan maxaa yeelay waxaa weeye waxbay sixi kartaa hawshaan qabanay wanaajin kartaa marka u malayn maayo in yani farmaajo oo kale spoilerka looga jeedo xiriirka xukuumadda ay leedahay gobolada aad u wanaagsan yihiin runtii waxaa lagu tilmaami karaa isbedel weyn oo dhinacaas xukuumaddu ka samaysay haddaa fiirisid mas-uuliyiinta waddanka sida madaxweynaha prime ministerka wasiirada waxay socdaallo shaqo ku kala tageen Garowe Boosaaso Gaalkacyo Cadaado muxuu ahaa Gurceel Beledweyne muxuu ahaa Gedo Baay Bakool Jubbooyinka haddaa waxaas oo dhan fiirisid yani runtii muddada gaaban iyo xiriirka xukuumaddu ay la yeelatay preferenceska yani meesha xamar waxay ka baxsan runtii aad u wanaagsan yahay uuna sii wanaagsanaan doonaa inta uu aan August la gaarin موقفك حكومة وحوي وهانتي قرن وواحد لو دليه لكن ظروف الجرتوة دائما سنتهاي وإسكو حركي ينابدي يمركا فيرسي runtii wax aad looga shaqeyn karo ma waxaan xitaa la hubin balafteeda in uu mataqaana meesha shitaal ku jiro oo yani runtii ilaa hadda wax la hubo xukuumadda ay ogtahay ma aha marka waxaasna dastuurkan hadda la wada ayaa qeexi doono iyo shuruucda baarlamaanka soo socda oo sameyn doono marka laakiin waxa xaqiiqo ah in hantida noocaas oo kala natural resource ka wadanka in la wada leeyahay waa mahadsantahay waa su'aal wanaagsan waxyaalaha ay keenay muxuu ahaa gobolkan Minnesota ina kamid tahay maxaa yeelay xukuumaddu waxay qiraysaa in muxuu ahaa qurba joogta Soomaaliyeed ay runtii ay ku leeyihiin kaalin aad u weyn waxqabadka wadanka iyo siyaasadda wadanka iyo meesha wadanku u socdo qurba joogga Soomaaliyeed
ومالجليها أقوين يعني مركز لا يسكت دارو أنت الدنيا دو سومالي سيسو وقت أنا حاضر كا أنت قرب جوكتو أي سيسو وحابة أنت قرب جوكتو سيسو taas waxay ku tusinaysaa in qurba joogtu ay runtii waddanka ku xiran yihiin siyaasiyiin ku xiran yihiin dhaqaaleyn ku xiran yihiin dhaqaalaha ay bixiyaan qurba joogtuna boqolkiiba boqol wuxuu ka fiican yahay halka dollar oo qofka qurba joogta bixiyo waxa gaaro waddanka halkii dollar marka laga yaabo in hay'adahan caalamiga markay $1 bixiyaan ay waxa gaaray 10 cents noqoto 10 cent ay noqoto inta kala kharash ay noqoto marka la yiraahdo efficiency yani runtii sida lacagtu qurba joogtu dirtay wax tar u leedahay qofka qurba joogta wuxuu xog ku helayaa baahida runta ay jirto markaasuu $100 wuxuu dirayaa qof tuulo yar joog markaasuu qofkii $100 wuxuu isticmaalayaa sidii ugu baahidaas uu jirto ugu tirtiri lahaa marka qurba joogta aad ay muhiim u tahay safarka aan ku imid Minnesota waa in markuu horeyso qurba joogta loo qiray inay muhiim yihiin qurba joogtana loogu baaqo inay kaalintooda sii zaidiyaan waliba waqtigan kala guurka ah inay siyaasadda ka qayb galaan inay muxuu ahaa fikradooda soo bandhigaan inay nala qabsadaan talada oo runtii ay nala taliyaan markan arrimahaas ayaa muxuu ahaa ayaa halkan keentay runtina reception fiican ayaan helnay oo soo dhaweyn fiican iyo fikrado badan waa isdhaafsanay waxaan rajaynaynaa waqtigan 20 maalin oo soo socoto 3 isticmaal soo socoto go'aano waaweyn waddanka laga gaarayo inay qofkii imaan karo qurba joogtaan u yimaado qofkii aan imaan karin uu yani u kuur galo oo telefoonka ku dhaganaado runtii haddaan hadda ku yiraahdo corruption ma jiro systemka dawladda dhexdeeda yani runtii been baan kuu sheegay waa corruption wuu jiraa wuuna jiri doonaa hataa wadamadan waaweyn corruption ka jira su-aashu waxaa weeye corruptionkii howl xadidaysa ma socotaa haddii qofkii corruptionka lagu qabto oo dhibaato asoo waddan ku haya lagu qabto maxaa laga qaban karaa diyaar garowga xukuumadda ee arrimahaas ka hortagaas muxuu yahay runtii taasaa muhiim ah road mapka waxyaalaha la rabay inaan qabanno waxaa kamid ahaa in aan sameyno sidii corruption looga hortagi lahaa marka shuruucdii iyo nidaamkii looga hortagi lahaa waa diyaarinay nasiib darro adiga commissionkii la rabay in la sameeyo madax banaanaa lahaa waa sameyn la'aanahay maxay sharciyadiisii ayaan macquul noqonaynin baarlamaanka duruufaha baarlamaanka dhex yaala daraadeed marka runtii laakiin xukuumaddu waxay ka go'an in waxa soo galan ay mataqaanaa budget loo sameeyo budgetka dawladda waa la sameeyey shuruudihii lagu kharash garayn lahaa iyo muxuu ahaa baabkii kharashku dhici lahaa waa la sameeyey waana ku dhaqannaa hadda taas wax badan ayay yaraysay oo lacagihii mataqaanaa qaanadaha jawaabka lagu hahaaye dawladnu ay leedahay hadda ma jirto dadaaladuna xukuumadduna aad u sii badan yahay laakiin corruption la yareeyo wax hal habeen iyo 2 maalin iyo dawlad ku meel gaar ah oo dhowr bil shaqaynayso ay soo afjari karta maaha waa shaqo soconayso miidiyuhuna wuxuu runtii ka qaadan karaa kaalin aad u weyn in ay muxuu ahaa karboon ku shidaan meeshii wax laga sheego runtii waan idinku dhiirigelinaynaa bahda miidiyaha Soomaaliyeed inay arrintaas runtii ay wax ka qabtaan runtii waan rajaynaynaa haddaad fiirisid heshiiskii lagu soo galay Garowe 1 iyo Garowe 2 iyo Gaalkacyo intaba waxaa lagu cayimay in markii u dambeysay oo qaabkan 4.5 ka la isticmaalayo uu noqdo waxaan loo gudbi doonaa haddii ay beedmo markii baarlamaan tayo la helo oo baarlamaankaas tayada leh oo dawlad tayo leh na siiyo waxaa loo gudbayaa in la bilaabo in deegaano la iska soo doorto
marka haddii ay bidmo 4 sano soo socoto waxaa la rabaa in markuu horeyso la register gareeyo dadka yani inay voodaan la rabo muxuu ahaa haddana la verify gareeyo dadka wacyigelin loo sameeyo yani ahmiyada ay leedahay doorashada iyo in dadka la isdoorto ahmiyada ay leedahay wacyigelin ay socoto muddadaas wacyigelintaa kadib haddana la bilaabo in la diyaariyo in dadkii deegaanada sida yani municipalka oo kale dowladaha hoose doorashadoodii ay bilaabato markaas haddana la isku diyaariyo muxuu ahaa doorashadii xildhibaanada oo markaas ku salaysan deegaan oo aan qabiil ku salaysnayn marka 4 sano ee soo socoto xukuumaddaas aan ku meel gaarka ayna imaan doonto runtii shaqo badan u taalo si wadanka ee markaas dowlad karsi rasmiysan iyadaas ay soo baxdo oo aan qabiil ku base garaysnayn ku base garaysan deegaan yani geographic marka runtii markii hadda August laga baxo markaas way marka shaqada runta ee wadanka isbedelka samayn doonto inay bilaabatay taa runtii dastuurku arrintaas kama hadlayo dastuurku wuxuu leeyahay shakhsiga madaxweynaha wadanka noqonaya waa inuu Soomaali yahay muslim yahay xaaskiisuna uu Soomaali yahay muslimna ay tahay marka runta marka loo hadlo waa dad badan oo iska propaganda ku sameynaya road mapka iyo dastuurka iyo waxyaalaha soo idil oo yani jecel in wadanku uu sidii biyo caalwa oo fadhiyo wadanku iska fadhiyo oo isbedel dhicin ayaa propaganda sameeyay laakiin waqti dhow ayaaba dadkoo dhan ay ogaan doonaan wax xaqiiqo ah maya taladaas madaxayga kuma jirto inaan xukuumadda aan kusii jirana laftirkeeda runtii madaxayga kuma jirto waqti yaraan kusoo biiray inaan muxuu ahaa ka shaqeeyo xukuumadda Soomaaliyeed wixii keenayna inaan ku biiran waxay ahayd in isbedelkan caawiyo oo aan is-irin aleeleh waxbaad aad tiri kartaa runtii waa in yani dhalinyaro badan iyo dad badan oo kale arrintan ay wax ka qabtaan uusan qof weligeed uusan dadka hor taagnaanin oo qof walba wax uu taminayaa qof walba yani fikir baa ku jiro fursad la wada helo yani taasaa jirta marka يعني إن سياسة دكسي جرحتها فكر كي جماعة وقت الحاضر